دبادي توسكا هاي aqoonsiga Somaliland inuu maanta bilowmay dhabadii tooska ahayd ee aqoonsiga Somaliland waxa la yiraahdo wax horjoogsan kara Somaliland horsocodkeeda iyo waxa dan u ah dalkeeda iyo danta shacabkeeda iyo ummadeeda ma jirto wax horjoogsan kara wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ee Somaliland Dr. Ciise Kayd Maxamuud oo shir jaraa'id ku qabtay xafiiskiisa ayaa waxa uu sheegay in madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud aanu ka hadli karin damaca iyo danaha Somaliland aanuna matalin Somaliland wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda Somaliland ayaa sidoo kale waxa uu ka hadlay inay Somaliland qaaday wadadii aqoonsiga waana kan wasiirka oo ka hadlaya arrimahaas iyo arrimo kale halkan maanta aan jecelahay inaan marka ugu horeysa wargeliyo dhammaan qurbajooga Somaliland hawsha dalkeenu maanta uu soo guuleystay oo ah mid aan hore u dhicin taasoo ah inuu maanta bilowmay dhabadii tooska ahayd ee aqoonsiga Somaliland adduunyada runtii waxaan rajaynayaa inaad ogtihiin in Somaliland waa la ogaa inuu yahay dal markii hore madax bannaan ku dhigeen maanta waxa weeyaan sanadkan waa sanadkii aqoonsiga aqoonsigeenu wuxuu yahay taynu u dhimanay aynu dagaalanay loo laayay wax ku dhow 500,000 dada dhaqaale burbur magaalooyinka burburay meel walba ay tagto amba ay joogto in la raadiyo aqoonsi Somaliland waynu galaynaa عدي دونتا راليها كان نقطو عدي دونتا كسو horjeedo xukuumadda villa Soomaaliya oo maalmihii dhaweyd meel walba ordaysay adduunyada oo sheegaysay inay leedahay Somaliland waxaynu ognahay inaanay kari karin inay xamar iyo gobolka Banaadir ay maamusho inay yihiin dhowr federal government gobollo iyo maamul goboleedyo kala gedisan oo aan Xasan Sheekh aan u talin karin saas darteed Xasan Sheekh kama hadli karo Somaliland iyo xiriirada caalamka ay galayso Somaliland waa dal xor ah xiriirada horena way gashay kana way galaysaa kana uu soo dhamaaday waxa la yiraahdo wax horjoogsan kara Somaliland horsocodkeeda iyo waxa dan u ah dalkeeda iyo danta shacabkeeda iyo ummadeeda ma jirto wax ula hadlo qurbajooga Somaliland anigoo aqoonsan oo og inay yihiin dad aad iyo aad u fircoon qadiyada Somaliland iyo aqoonsiga oo ah taaynu intaas dhowr iyo 30 sano u soo dagaalamayay inuu maanta albaabkeena joogo oo aynu ku soo guuleysanay waxaynu heshiis la galnay dalka Ethiopia oo aynu xor u nahay